بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa halkan inaan wax yar oo niman maal dhaweyd siyaasiyiin isku sheegay oo wax ka hadlayay dhulkan danta guud iyo arrimo noocaas ka hadlayay ayaa waxa laba nin baa ka hadlay horta isagu xidhoon wixii hebel yiri baan ku taageeray miro wax badan hadalkiisa kama aan fahmin laakiin ninka kale ee aadan la dhaaba wuxuu yiri magaalada waxa ka jira qallaase magaaladana wax qallaasi kama jiro oo waa u jeedaan dadka dhulka laga iibiyayna maaha dad meel kale ka iibday waa dadkii boorama deganaa xaqna u lahaa in laga iibiyo inay wadanka maal gashadaan oo ay bilicda magaalada soo saaraan waa dadkii lahaa umbay ahayd cid kale oo meel kale ka timid ma saasaanan wax dhibaato ay taasi uga jirin ta kale waxa ka iibiyay dawladda ayaa si sharciya uga iibisay wasiirka cidii ay u gmatay dawladdu waa wasiirka hawlaha guud isaga si sifo sharciya awshaasi kaga uga iibiyay ganacsatada isaga si sharciya uga iibiyay marka waxa uu yiri aadan dhulkan waxa ka xishooday siyaad bare iyo daayirayaal ka xishooday buu yiri marka sidoo hadalka u dhigay waxa uu leeyahay siiraayo uu ka xishoon waayay dhulka buu yiri isagoo lisaan hadalka saan maqlay ka shaqeeya madaxtooyada qaybta wartool ka shaqeeya ayaa wuxuu ogaan waayay annaga maadaama uu haysano dawladda noo aragno dawladda siiraayo tii ugu horumarka fiicneed iyo ugu waxqabadka fiicneed haday ilaamiyay tahay hadii ay tahay mataqaanay shaqaale dawladda haday askar tahay dawladda ugu horumarka fiicneed noo aragno wuxuu arki waayay isagoo madaxtooyada dhex jooga horumarka haduu arki waayay anagoo dibadda jooga ayaan aragnay horumarka dawladda ayaan arkaynaa dhinaca kale wuxuu mar kale yiri lacagta qasnada dawladda laguma shubin buu yiri kulay dawladda lacagta waxa qasad dawladda goorma ayuu isagu noqday wasiirka maaliyadda cid ay dawladdu u igmatay waa Marwo Samsam waa wasiir aad runtii mataqaanay uu muhiima waxaan ka xasuustaa maalin qurjeed waqtigii abaaraha ay halka qurjeed ku kulanay ayaa waxay nagu tiri waxaan abaaraha ku daraya lacagtii habeendhaxa ay shaqaalahaygu lahaayeen ayaa waxaan ku darayaa abaarahan ku daraya maalintii sanadkii hore ilaa maantana wada aragtaano dadka dhibaataysan inay mar walba joogto meesha ay joogaan ama bari haata ama galbeed haato oo ku aragnaa waa qof mataqaanay daacada oo dadka Soomaaliland jecel horumarka iyo mataqaanay xoog u jecel wax qabadkeegana waan aragnaayo wasaaradda maaliyadda ee halka laga dhisay sida mataqaanay waxay ka muuqataa wax qabadkeega ay xooga muuqataa waana wasiirada ugu fiican ma aaminsanay wasiirada hadda dawladda madaxweyne maxamed siiraayo dhinaca kale mar kale wuxuu yiri waxa la leeyahay dhul laga dhiso wasaarado kullay dawladdu cid baa hadii ay wasaaradda dhisayso uga mas'uulo oo dhismaha iyo xaasa cidii ay khusaysaa laakiin isagu ma waxaan isleeyahay dhinacyada magaalada ma eegin magaalada dhan walba way banaan tahay bari afarta dhinac adeegtaba way ka banaan tahay magaaladu hadii wasaaradda la dhisayo